jigjiga markii hore soo timaadaba jigjiga waa xaafadaydii iyo magaaladeydii waxa weeyaan waa dadkaygii jigjiga aad baan u imaadaa aad iyo aad baan u imaadaa jigjigo magaalo qurux badan oo wanaagsan oo aad iyo aad u korayso horumar badanina ka socdo kulanti wacan oo wanaagsan soo dhawaada daawada meel kasta iyo goob kasta aad joogtaan halkan oo daacad media maanta waxaan ku sugannahay bandhiga jigjiga international book fair halkaas oo ay tahay markii koowaad ee lagu soo bandhigay jigjiga international book fair iyadoo ay ka soo qayb galeen qoryaa iyo mataqaanaa akhristayaal kala duwan waa jigjiga waa markii koowaad ee lagu qabto isla markaana ay tahay markii horeysay ee lagu qabtay guud ahaanba deegaanka waxaan ka yimid Hargeysa waxaanan matalayaa oo laba koofiyadood aan ku xidhanahay inaan ka socdo xarunta dhaqanka Hargeysa sidoo kalena aan matalayo bandhiga caalamiga buugaagta Hargeysa oo sanadkan 15 jirsaday dhowr bilood ka horna Hargeysa ka qabsoomay tanna waxa weeyaan markii 2008 dib loo bilaabayay maaragtay dadyoogii aasaasay bandhiga caalamiga buugaagta Hargeysa rajo ay ku weynaayeen inay mar u rumoodo oo ahayd inay arkaan meel walba oo Soomaali joogto maaragtay Soomaalina degan tahay in mar lagu arko meel lagu kobcinayo akhriska iyo qoraalka iyo afka Soomaaliga marka runtii aad baan iga mahadcelinayaa bandhiguna runtii aad buu qurux badnaa sanadkii koobaad ee jigjiga maaragtay martigelinayso bandhiga caalamiga ee jigjiga waana rajaynayaa in magaalooyinka kale ee jigjiga maaragtay kamid ahna ay marar kale martigelin doonaan bandhiga caalamiga ee jigjiga runtii aad baan iga mahadcelinayaa waxaad ka qayb gashay bandhigyo fara badan maxaa leeyahay ku duwan yahay bandhigan qoyiga marka laga imaado bandhiga caalamiga buugaagta Hargeysa oo labadii sano ugu dambeeyay aan kala shaqeynayay kana mid ahaa hawlwadeenadii xarunta oo markaa diyaarinayay bandhiga caalamiga buugaagta Hargeysa sidoo kalena aan ka qayb galo shirar kale oo mar jigjiga ka dhacay mar Nairobi ka dhacay sidoo kale Hargeysa mararka qaar ka dhaca waxaan u maleynayaa on kan wuxuu kaga duwan yihiin in is arag dhab ah oo ay timaado maan filayn runtii in waxaasoo dhalinyaro ah marka laga imaado Hargeysa oo ogahay 15 sano ay soo waday bandhiga caalamiga buugaagta Hargeysa laakiin marna maskaxdayda kuma soo dhicin bandhiga koobaad ee sanadkii koobaad ee jigjiga la qabanayo waxaasoo dhalinyarada isku iman doonaan waxaasoo maaragtay dad yow kala duwan taatalo kala duwan isku iman doonaan runtii aad bay farxad gelisay waana ka duwanaanshahan arkay maaragtay intan ka qayb galay kuwayaagii kale aad ma san idinka mudan Hargeysa maxamed aad baan ku faraxsanahay ka noqotay qaybta barnaamijka maanta saaxiibaad baa mahadsan tahay sharaf bay tahay barnaamijkaaga inaan marti kugu noqdo aad baan ugu faraxsanahay maanta waxaad ka soo qayb gashay jigjiga international book fair bal soo wartaa maxamed dareenkaaga ka wallahi aad baan ugu faraxsanahay inaan halka joogo magaalada jigjiga oo ay tahay markii koowaad aan imaado kana soo qayb galo carwada buugaagta jigjiga international book fair dadka reer jigjiga madaxdooda iyo shicibkoodaba si weyn bay noo soo dhaweeyeen aad bayna u mahadsan yihiin bal jigjiga sidee kula muuqataa sidee u aragtay jigjiga ka hor walaal macaan jigjiga markii koowaad baan imid si aad u qurux badan waxyaabo badan oo aan filim baan kala kulmay insha Allah mar baan si gaar ah uga sheekeyn doonaa laakiin ajaayib baan kala kulmay ugu soo daacad media adoo ku bilaabay magacaaga maxamed lig joogyo book fair ka ama bandhiga buugaagta jigjiga markii ugu horeysay hotelka Lotus magaalada jigjiga jigjiga markii hore soo timaadaba jigjiga waa xaafadaydii iyo magaaladeydii waxa weeyaan waa dadkaygii jigjiga aad baan u imaadaa aad iyo aad baan u imaadaa jigjiga magaalo qurux badan oo wanaagsan oo aad iyo aad u korayso horumar badanina ka socdo dad badan oo Soomaaliyo maaragtay Soomaalidana jecel ay joogaan marka soo dhaweyn wanaagsan iyo ixtiraam wanaagsan iyo qadarin wanaagsan jigjiga mar walba aan ka helnaa maxamed akhriska sidoo yihiin wallahi akhriska uu kala duwan yahay akhrisku una noocyo badan yihiin akhrisku xilliga qoraallo aad akhrisato oo ama baraha bulshada lagu baahiyo ama Google-ka lagu baahiyo ama buugaag aad akhriid ama aad akhriid maaragtay quraan akhrisku noocyo badan yihiin marka akhriska qayb kamid ah baan ku jiraa maadaama saxiif ahayna wax akhriyana waa shaqadayda waxa laga yaabaa inta wax daawado inta wax akhriya ka badan maalin walba oo Ilaahay soo gooyay waxay ka dunta salaadaha bandhigii hore horta anigu waa bandhigii ugu horeysay ee aan sidaan uga qayb galaano dhammaan bandhigyada buugaagta Soomaalida oo dhan mid sidaan uga qayb galay ma jiro jigjiga oo kii ugu horeysay anuna nasiibana kii ugu horeysay sidaan uga qayb galay tiimahan oo ku shaqeynay kasoo imamti fiican group dhan aan shaqada ku wadnay haddana dadaal badan iyo faham badan iyo aragti badan ayuu u baahan yahay bandhigo oo wuxuu u baahan yahay maadaama aqoon iyo wax badan la isweydaaranayo in dadaal badan halka lagu muujiyo u baahan yahay nabad la helo
waxa weeye furfurnaan la helo dadkii Soomaaliyeed inay isku furmaan oo dhinac walba la isku furmo cilmiga iyo dhaqankaba la isweydaarsado taasna buug feerkana maanta furow ah waan soo dhaweynaa oo ku faraxsanahay madawad ka mid tahay waxgaradka deegaanka waa markii ugu horeysay buugaag noocan oo kale lagu soo bandhigay deegaanka Soomaalida waliba caasimadiisa magaalada Jigjiga raad noocay ayuu reebi karaa baad isleedahay raad reebi doono horta foolaadkii Soomaaliyeed baa sugi haday aqoonyahan tahay haday qoraal tahay haday wariye tahay haday culimo tahay la sugi waxaan isleeyahay inaan wax badan ka faa'iido doono dadkana dhul badan bay ka yimaadeen khibraday leeyihiin khibradahoogana waan u baahanahay inaan la wadaagno innagana fikir fiican iyo sawir fiican inay naga qaadaan oo la tagaan oo dhulkii la tagaan ay ka yimaadeen aad iyo aad bay faa'iido badan inoogu tahay oo ka mid ah hal-abuurada deegaanka Soomaalida waxaan kula kulmay madasha bandhigga buug caalamiyeedka Jigjiga International Book Fair abaan marka hore ku soo dhaweynaa telefishinka Home Cable waxaad warbixin naga siisay madashan aad maanta ka soo qayb gashay nidaamkeeda aad iyo aad buu maasan tahay waana dhawahay run ahaantii bandhigga caalamiga ah ee buugagta Jigjiga oo ah kii ugu horeeyay ama markii ugu horeysay taariikhda lagu qabanayo halkan runtii waa farxad aad u ballaaran taas oo soo hoyatay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaanna deegaanka Soomaalida hoos markii loo soo dhaacana bahda qalinleyda jecel akhriska iyo qoraalka in badan wuxuu ahaa qorshe lagu hamiyay ama ay dhalinyarada deegaanku mar uun maartay ay ku taamayeen inay arkaan sida magaalooyinka kale ee Soomaaliyeed bandhigga caalamiga ee buugaagta oo lagu qabanayo magaalada Jigjiga run ahaantii bandhiggan oo ah mid ahmeediisu ayaad u ballaaran tahay waa mid xiise gaar ah iyo dareen gooni ah watay qof kasta oo Soomaaliyeed oo madasha ku casuumnaa ama fadhiyayna ay u ahayd maalin kale oo qurux badan oo taariikhi ah waxay isugu yimid ama ku kulmay dhalinyaro Soomaaliyeed aqoon-yahano saxafiyiin cuqaal madax intaba oo ka kala yimid guud ahaan dhigayga Soomaaliyeed meel kasta ay noqotaba runtii waxa uu ahaa ama uu noqon doonaa insha Allah madal lagula kala hoydo faa'iidooyin aad u fara badan isbarasho isdhexgal iyo sidoo kale meel lagu wadaago doodo kala duwan oo aqooneed cilmi kororsi dhan kastaba ha noqotee inkastoo ay tahay waqtigii ugu horeysay laga qabto halkan bandhiggan noocan oo kala haddana waxa uu ahaa mid si qurux badan oo heer sare ah loo soo agaasimay xaqiiqatanna aanu ekayn mid markii ugu horeysay halkan laga qabanayo waxaan jeclaan lahaa ugu dambeyn in aan maartay u mahad celiyo dhalinyaradii soo agaasintay iyo cid kasta oo gacan ka geysatay waqti iyo maskaxba ku bixisay muddo sanad ah oo barnaamijkani soo socday ama lagu taamayay inuu mar uun qabsoomo aad iyo aad bay iyaguna u mahadsan yihiin idinkuna mahadsantihiin